qodob keena wax ka qabashada sixir bararka maciishada dalka waan wada ognahay shakina kuma jiro in maanta sixir bararku aad u sareeyo halka maanta uu gaarsan yahay inuu wali aanu gaarin waxaynu ognahay koobka shaaha imika meelaha qaarkood baa 3,000 laga siiyaa gadbadii sokorta ahayd $50 bay maraysaa haafkii 25 haafkii kale 25 buu marayaa haafkii kiishkii sokorta ahaa waa $50 muran kuma jiro in maciishadu maanta aad u sareyso waxaasay u baahan tahay sidii wax looga qaban lahaa intay taalkeena marka waxaan soo jeedinayaa horta marka u horeysa xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa iyadoo maciishada daruuriga boqolkiiba 10 cashuurta ka dhintay waxaan leeyahay kuma filay horta taa hoos loo sii dhaadhiciyo waliba cashuurta qoota daruuriga la cunayo ha laga dhaadhiciyo cashuurta ha laga dhimo ay qiimo dhimista loogu sameeyo waxaan kaloo u soo jeedinayaa iyana ganacsatada inay ilaahay ka yaabaan oo ay dadkooda iyo shacabkooda Soomaaliland maciishada subax walba ay kicinayaan ee ay maarta halkii ka soo dhaqaajinayay shalay taagnayd in iyadana wax macquula marka qiimo dhimis loogu sameeyo cashuurta in iyaguna wax macquul ku iibiyaan oo dadku awoodi karaan $50 ba qofka dhowr rufuucyo badan u goynaysay maxaan ku dhahday oo uu xoogaa ku yar noolaanay bisha 2 ilaa 20 maalmood meelaha ilaa 15 maalmood dadka danyarta $50 maanta uma goynayaan ba waxaan ku dhahday gadbad sonkor ay noqdeen ba $50 xoogaa geerarashka ku qaadanay qoysaska danyarta marka waxaan leeyahay iyaga ganacsatada ummadda u naxariista ilaahay si inoogu naxariisto oo maciishada waagi bariyada aad kordhinaysaan halkeedii ka soo dhaqaajinaysaan maadaama cashuur dhimis leedii sameeyo boqolkiiba 10 imkaanu haysano waxyaalaha daruuriga ah taa lagu xisaabtamo iyaguna ka dhaadhiciyaan shacabka waxa kale oo aan maaragtay soo jeedinayaa shidaalka oo ah isaguna noqday daruuri buu noqday leerkii baa ku soconaya gaadiidkii baa ku soconaya aad baa loogu baahan yahay isna uu kacay oo shidaalku aad buu kacsan yahay isaga laftigiisana xukuumadda qiimo dhimis inay ku samaysan u soo jeedinaya oo isagana xagga hoos loo eego ay xukuumaddu isagana ay hoos u dhaadhiciso si dadka shidaalka iibinaya ay maartay hoos iyaguna u dhaadhiciyaan waxaan ku soo gabagabaynayaa ku soo koobayaa sixir bararku inaga tagi maayo haddii ayna wax soo saar samayn waxaynu u baahannahay in aynu dhulka qodanno meelaha ku macquulka ay wax ka soo bixi karaan ganacsatadeeduna ay maalgeliso cid kasta iyo xukuumadduba iyo cid kasta oo awood u leh in ay maalgeliyaan aynu wax soo saar samayno dhulka khayraadka ku jira gudahan aynu la soo baxno haddii aynu dhulka ku foorasano oo aynu wax soo saar samayno waxaan filayaa innagana inaynu cuntada dibadda kaga maarmi lahayn maxaan ku dhahday waliba meelo kale u dhoofin lahayn oo loo hagar baxo taasaan qabaa waan aaminsanahay marka wax soo saarka laftigiisana waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa xukuumad iyo ganacsato iyo shacabkuba in ay dhulka hoos ugu foorsadaan oo khayraadka dhulka ku dihan lala soo baxo had iyo jeer waxaa jirta inaynu jaad laynooga keeno Ethiopia jaadka Ethiopia laynooga keeno lacag baa naga tagta sixir bararku saamaynta qaybta lacagta doolarka banku uu fadhiisiyay meel buu taagan yahay oo imika doolarku dhaqdhaqaaq badan inaguma hayo laakiin waa tii maciishada taymka aynu ka hadlaynaa marka taana halka banka waxaan leeyahay halkiina ku haya lacagta Ethiopia naga tagtay doolarkaana waxaan jecelahay oo aan soo jeedinayaa in wax loogu bedelo oo lacagta ayadana sixir bararkeedu doolarkaas hadduu hoos u dhaco oo waliba inta ka sii dhaadhaco maciishadu waxaan u malaynayaa inay sidoo jabi lahayd marka jaadka lacagta adaga inooga baxaysa Ethiopia in aynu milix iyo kalluun iyo wixii macquul ah inaynu ku bedelan karno inaynu ku bedelo lacagta
dollarka inaga tagaysa iyadana aynu xakamayno ayaan soo jeedinay intaas